maamulka Chelsea oo waqti u qabtay Mauricio Pochettino, Paul Marston oo aaminsan in Arsenal aysan ku guuleysan karin horyaalka Premier League, xidigaha Man United oo fariin u diray Jadon Sancho kadib khilaafka kala dhaxeeya tababare Erik ten Hag iyo Xavi Alonso oo warka u cadeeyay Real Madrid oo doonaysa inuu u bedelo Carlo Ancelotti. Dhammaan warbixinadan ayaa kugu soo gudbin doona muuqaalkan, balse marka hore waxaa si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad like saarto muuqaalka sina share kareyso si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. Haddii aad inagu cusub tahayna ku soo biiro oo nagala qayb qaado qurxinta muuqaalka, haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay. Hagaag tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Mauricio Pochettino ayaa wajahaya cadaadis xooggan xilli ay kooxdu si xun ku bilaabatay xilciyaareedka horyaalka Premier League. Chelsea ayaa kaliya badisay 6 kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League iyaga oo la kulmay 4 guul daro ilaa iyo haatan. Kooxda ayaa wajahaysa kulamo adag waqtiga soo socda iyadoo la ciyaari doonto kooxo badan oo qaab ciyaareed fiican ku jira. Ka hor kulamadaasi waxaa jira warar sheegaya in ay maamulka Chelsea shaqada ka ciirin doonaan tababare Mauricio Pochettino haddii uu dib u helin natiijooyin fiican. Kooxda Chelsea ayaa kulamada soo socda la ciyaari doonta kooxaha Arsenal, Brentford, Tottenham Hotspur, Manchester City, Newcastle United, Brighton iyo Manchester United. Maamulka Blues ayaa ka fikiraya inay shaqada ka ciiriyaan tababaraha haddii ayna kooxda dib u badin kulamada soo socda. Dhinaca kale, khabiirka caanka ah ee Paul Marston ayaa aaminsan in Arsenal ay u baahan tahay weeraryahan dhexe oo sax ah maadaama Gabriel Jesus iyo Eddie Nketiah aysan ka caawin karin ku guuleysiga horyaalka Premier League. Mikel Arteta ayaa ku soo wada bilaabay Jesus iyo Nketiah markii ugu horeysay kulanka North London Derby oo ay la ciyaareen Tottenham. Si kastaba haatee, labada weeraryahan ayaa lumiyay fursado dahabi ah oo ay gool ku dhalin kareen iyadoo Gunners barbaro 2-2 ah ku gashay Emirates. Paul Marston ayaa la wadaagay walaaca uu Arsenal ka qabo Sky Sport, waxaana uu yiri mar walba waxaan dhihi jiray laga bilaabo maalintii koowaad Eddie Nketiah kuma guuleysan karo horyaalka Premier League sidii ayayna u muuqataa haddii aysan Arsenal la soo wareegin weeraryahan cusub. Dhinaca kale, ciyaartoyda Manchester United ayaa ku booriyay Jadon Sancho inuu raali gelin siiyo Erik ten Hag kadib markii ay isku dhaceen sida ay wararku sheegayaan. Sancho ayaa laga saaray kooxda Man United kulankii Arsenal ee bilowgii bishan, waxaana uu ten Hag ciyaarta kadib sheegay inuu xidigu tababarka u qaadan si fiican. taas ayaa keentay in xidigu kaga falceliyo tababaraha isagoo adeegsanaya baraha bulshada, taas oo sii xoojisay khilaafka u dhaxeeya xidiga iyo tababaraha. Kooxda Man United ayaa xidiga gabi ahaanba ka ganaaxday tababarka iyada oo loo sheegay in uunan ku soo laaban doonin ilaa uu raali gelin siiyo tababaraha, sida laga soo xigtay ESPN. Qaar ka mid ah xidigaha Man United oo ay ku jiraan Marcus Rashford, Luke Shaw iyo Harry Maguire ayaa xidiga Sancho u sheegay inuu raali gelin siiyo ten Hag si uu u badbaadiyo xirfadiisa ciyaareed. Ugu dambeynna, Xavi Alonso ayaa warka u cadeeyay Real Madrid oo uu sheegay kooxda uu doonayo inuu tababaro u noqdo eeriyadiisa ah, xilli ay suuqa ku jiraan warar sheegaya in Florentino Perez uu doortay inuu bedelo Carlo Ancelotti. October 2022 ayaa Alonso loo magacaabay tababaraha Bayer Leverkusen oo uu ka bedelay Gerardo Simeone oo la ceeriyay waqtigaasi, waxaana uu markiiba kor u soo qaaday kooxda ku jirtay kaalmaha hoose ee horyaalka Jarmalka. 8 ciyaarood oo uu hogaamiyay xilciyaareedkii tagay ayaa waxa uu ku keenay heer ay ka soo qayb gasho tartanka Europa League ama kaalinta 6aad ee Bundesliga, halka tartanka Europa League iyo isla xilciyaareedkiisii koowaad ay yimaadeen afartamaadka. Real Madrid ayaa si aad ugu faraxsan shaqada uu qabanayo Xavi Alonso oo ay u arkaan inuu kordhisanayo khibradii uu ku maamuli lahaa Santiago Bernabeu. Hase yeeshee, Xavi Alonso ayaa isaguna horeba warkiisa u cadeeyay. Alonso oo la hadlayay Talk Sport markii horeysay ayaa waxa uu sheegay in kooxda uu ku riyoonayo in mustaqbalka tababaraha u noqdo ay tahay Liverpool, waxaana uu yiri waa xaqiiqo, waxaan ku riyoonayaa inaan tababaro u noqdo Liverpool, waana cadeeyay taas dariiqeedana waan hayaa. Haddii aan go'aansado inaan ka tago Leverkusen, xiriirkayga, hadafkayga iyo jacaylku wuxuu yaalaa Liverpool ayuu hadalkiisii raaciyay. Xavi Alonso warka u cadeeyay madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez oo u arkay bedelka Carlo Ancelotti.